laba qof ayaa ku dhaawacmay mudaharaad ka dhacay gudaha magaalada Ceergaabo ay kadib dil maalintii shalay ahayd ka dhacay deegaanka Ceeriyaan ee koonfurta gobolka Sanaaga waxaana qaar ka mid ah dadka shacabka oo gadoodsanaya waxa saaka ay mudaharaad ay ka dhigeen sharciyada waaweyn ee magaalada iyadoo ciidamada booliisku ay u adeegsadeen rasaas waxaana shacabka qaarkood ay ku dhawaaqayeen doorasho xilligeeda lagu qabto iyadoo ciidamada booliisku ay goobahaasi ay iskaga baxeen ay waxa halkaasi dajin ku sameeyay ciidamada qaranka Somaliland waxaan arrintaas ma soconayso saaka magaalada waa ka shahay hadda dadkii waxaa la leenayaa shaar dowladeed baa loo soo bashamay waa la isku tuurtuurayaa waxaanu rabnaa hadda iyo hadda baadinkeedu adinka ayaanu rabnaa u baahannahay haddaan xisbiga wadani mucaaradka waanu xambaaraynaa balkaan xandarada iyo dadka shacabka la leynaya maalin walba waa dadkii hore sidii loo laayay unbaa kana loo dilay haddaan nahay xisbiga wadani waa xambaaraynayna ninkaa shacabka annagu dooni mayno booliis gobolka ka shaqayn maayaan dib haddaan ugu aragno annagaa yaana dib nooga shaqayn dad bay iska laynayaan la xaqdaray ku dilayaan haddana xaloolaya dowladda waxaanu leenahay maalin walba mudaharaad baan sameynaa mudaharaadkaygu si samiyo sharci ayuu aanu leenahay maalin walba boolisku maalin walba xabadaha hoose nol ku dhigaa booliska miya maanta annaguba meel iska soo saaraynaa militarigu khasaarihii hore oo nagu dhacay waa khasaare kale noolagu daray annagu wallaahi inaanay sidaas ku joogeen magaaladuna saasay 20 cisho dhagax nagu oolaya sanadkiisa ilaahay ta muuse biixi ka tagayo ogsoontii 3 qof ay naga baxay allah naxariisto allah raxma gacan xaq daran baa dishay yaadade ilaahayna janna farduusaageeyo ayaga maanta halka lagu daadiyay baan doonaa cadaaladiisa kii hore la dilay oo maxay tahay maantana kan uu dilay taasa dawladda aasina maylo mudaharaad kala dayn maylo xukuumadan cabdi waxaan leenahay madaxweyne waxaan ku dooranay amniga iyo nabadgelyada iyo shacabka iyo macaamilka dadka wala macaamil lahayd laakiin askari sarkaal oo ku tumanaya askari shiciba oo dilaya oo xabad ku dhufanaya oo cagtugleynaya baawri awood u sheeganaya taas sharcina ma aha dastuurkeena kuma jirto inta waxaanu ka hadalnaa gobolladeena Soomaaliland waxa lagu arkayaa askari dilaya shacab muwaadin reer Soomaaliland taasuna mid qabato ma aha sharciyana kuma jirto annaguna waxaanu leenahay Muuse madaxweyne oo taageersanahay madaxweynaheeni baa tahay xil baad noo haysaa mas'uul baad noo haysaa oday baa tahay sidoo wax ka bedel oo isku noqo oo raggan kale siyaasadda khaldan ku soo dhiibeen iska shaandhay sideen arrin ma wax macquul ah dalkaaga iyo dadkaaga shacabkaaga ula khaalay bismillaahi raxmaani raxiim mudaharaadku wuu socdaa wuuna socon doonaa joogsami maayo dadweynuhuna way israaceen doorasho ku dhawaaqayaan ciidanka qaranku waxay damceen inay shacabka si xaq darraa u laayeen rasaasta ugu dhigaan waxaanu leenahay doorasho dadweynuhuna waa u diyaar ilaa caawa ilaayo inta isbedelniman doono doorashaanu leenahay dalku doorasho u baahan yahay waa soconaya mudaharaadku maanta ma ahe birina waa soconaya saa dambana waa soconaya iyadoo halkaasna uu kala hadlay atali ku-xigeenka ciidanka booliiska gobolka Sanaaga Mira Maxamed Nuux waxaan adaba garan maayo kullu carabku way qallalan yahay dadweynaha baan isku xeeqnay dareeskii waanu soo bixiyay ka shacabkan ku matalayay inaan kaga saaro rabshadii ay sameynayeen alxamdulillah waanu safgaranay
dibna waan u saarnay wariyaashu waa goobjoog bay ahaa waxaanu islahayn dhagaxii haddaan guranaa jaalis waxaanu helnay makeena dabdamiskii soo saaro oo baktiyo alxamdulilah ilaahay baa mahad leh wixii dambena haddii alla idmo waan idinla soo socotin doonaa maxaa khasaare ka dhashay mudaharaadka taniya khasaare waxaa ka dhashay 2 qof oo dhaawacaan iminka manhal kaga yimi oo dhaawac fudud ah iyo 5 askari oo sarkaal ay halkaa kaga dhacday xiribta dhagax kaga dhacay 4 askarina waa dhaawac fudud ilaahay inoo boogadhayaan leeyahay dambe soo baxana haddii alla idmo waynu wada socon doonaa dadweynaha waxaan ka codsanayaa inay isdejiyaan oo nabadgelyada ilaaliyaan oo shaydaanka iska naaraan oo wixii jiraba waa la xisaabtamaya waa la gaadhaya wixii wax geystay waa la gaadhaya laakiin inaan iyagu ka dambi badan qof dambiilaha inaan iyagu ka dambi badan baan ka codsanaya waayo boolisku waa ka hortag iyo ka dabatag weeye ka dabatagga idinku ha ka badanina waan leeyahay cali aadan daahir wararka telefishinka caalamiga home cable tv magaalada ceergaabo waxaad samaynaysaa kulbaleygiisa tablet ma yihi cunto kariye dhammaystiran waxaan ahay arday ku dhigta qaab online ah anigoo isticmaalaya internetka myfi internet samtel macmiil kaga shubo xidhmooyinka internetka iyo ku hadalka xidig halibeer hale fergees oo hel 20% oo ah internet abaalmarina oo dheeraada